waxaa magaalada Gaarisa lagu qabtay shir lagu taageerayay maamulka Jubbaland isla markaana lagu dhaliilayay dawladda Soomaaliya. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay beelaha Jubbooyinka waxaana ka mid ahaa ugaaska Absame, ugaas Axmed ugaas Cali, gudoomiyaha beelaha Jubbooyinka Xasan Sheekh Cali Gele, xogayaha beelaha Jubbooyinka General Cabdi Faarax, ururka dhalinyarada Jubbooyinka, ururka haweenka Jubbooyinka, fanaaniinta Jubbooyinka, saxafiyiinta Jubbooyinka iyo marti sharaf kale. shirkan ayaa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka ee Ceenul Qamar. shirka ayaa waxa lagu taageerayay maamulka Jubbaland ayadoo dhaliil loo soo jeediyay dawladda Soomaaliya, waxaana ka hadlay madax kala duwan ayagoo tilmaamay muhiimadda shirka. وين يسعسلان برلمان الصومالي محنو شيئنا نمان كائن حلك كقعدان أو كفريستان نمان كالصومالي سمكين هيا صومالي وين أنتين رجعت كوفة عن الصومالي أردن كوفة ضمن وين يسعسلان نمان كبرلمان كنا وين كفريستو فرين تاسا ندرينا صومالي الدبت أردن يسا حلا يسا جعان سينا يسا وحال أوجاتان صومالي نمان كواي كلا درين صومالي ده وحلا يسا يجا مود يسا إن مصلحة صومالي وتبتون صومالي ده وحنا راح يكسر نورا سيد النمان كان لور يدي لها صوماليا وحنا يجي لها ما نقول كبوقشوا صومالي نما كم صوص عطو سلاح نما كم صوص عطو قال العدوك ليش اللي كم صوص أنا قاسي وحواجب نجاه إن Jubbaland قرب سينو كيا وحي ما هي أندفع. حاسدو كلا كهالي ويل دليرة oo ku hadlayay magaca dhalinyarada Jubbooyinka oo ka hadlay dhibaatooyinka ay qabaan dhalinyarada Jubbooyinka. dadka Soomaaliyeed hooyooyinka meesha qoxodiga fadhiyaan ilbiyada dhaabay fadhiyaan dibba haysta ka kumay fadhiyaan dhalinyarada baday galeen dhalinyarada South Africa lagu leeyahay xaq miyaataas aniga ku hadlay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa cid kasta oo madaxka Soomaaliya inay ka fikiraan waxyaalaha ay ku dhaqayaan maxaa yeelay maalinka dhalanay ilaa maalinka maanta dib iyo qaxwo ku noolay hooyooyinkana ayagoo lugaynayo oo rafaadsan oo biyaysan oo cuntaysan ayay ilmi ka sooteen oo dhicisa dhaleen taxmiya. shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markay heshiis ay gaareen dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. heshiiskaas oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Maxamed Ciise, Honkebel TV, Gaarisa. الله ينسي ومدمدو يسوى الراس.